Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada daawada bal suurayso adigoo maalin seexday kadibna soo kacay adduunkii uu isbedelay kadibna aad ogaatay in aad huruday 309 sannadood siduu xaalkaagu noqon lahaa. Qisadani ma ahan mid mala awaal ah, waa qiso xaqiiq ah oo ku dhacday dhalinyaro doonaya inay Alle caabudaan iyagoo cidna dhibayn. Qisadanina waxaa inoo xaqiijiyay Alle oo ku sheegay qur-aankiisa. Balse intaynan u gudagelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaagana nagu qaybta kommentiga. Waxaa jirtay tuulo ay ku nool yihiin dad gaala ah. Tuuladaasi boqorkeedii iyo dadkeediiba waxay ka leexdeen jidkii saxda ahaa, waxayna caabudeen asnaam. Qofkii aan rumayn ama dafira asnaamtooda dhib ayay u geysan jireen. Bulshadaasi xunna waxaa kasoo dhex baxay koox yar oo ka shaqaysiiyey garaadkooda islamarkaana diiday inay caabudaan asnaamta, waxayna go'aansadeen inay caabudaan Allihii abuurtay oo keliya. Waxay ahaayeen dhalinyaro rumeeyey Eebbe, Allana uu u kordhiyey iimaanku. Ma aysan ahayn dhalinyaradaasi nebiye ama rasuul, waxayna bilaabeen inay dadkooda ugu yeeraan risaalada, waxayna kasoo horjeedeen in Alle caabudistiisa wax lala wadaajiyo, balse qoomkoodii way ka diideen. Boqorkii ka talinayay tuuladaas ayaa ugu hanjabay inuu dili doono haddii aysan caabudin asnaamta, waxayna isku garabsadeen inay ka tagaan tuulada iyagoo u baxaya meel ay Alle ku caabudaan iyagoon cidna dhibayn. Wayna ka tageen tuuladii iyaga iyo eygoodii. Waxaase kaloo la sheegaa in eyga uu dhex kasoo raacay. Socdaal dheer kadibna waxay ku nagaadeen god, iyagoon aqoon waxay kala kulmi karaan godkaas, waxayna tala saarteen Alle. Dhalinyaradiina waxay seexdeen godkii, eygoodiina wuxuu seexday iridda godka si uu u ilaaliyo. Kooxda dhalinyarada ahina muddadii ay ku jireen godka, qofkii arkaa wuxuu moodayay inuu soo jeedo. Culummada qaar ayaana ku fasira in dhalinyarada ay indhahoodii furnaayeen. Ilaahay amarkii, dhalinyaradii hurdo dheer kadib way soo kaceen, waxayna isweydiiyeen dhexdooda, imise ayaan halkan ku nagaanay? Qaar iyaga ka mid a ayaa ku jawaabeen maalin ama maalin barkeed, waxayna dareemeen gaajo aad u daran. Waxayna mid iyaga ka mid a u dhiibeen lacag si uu ugu soo iibiyo cunto, wuxuuna kusoo galay tuulada si dhuumasha, balse wuxuu la yaabay sida degdeg ay isku bedeleen dhismaha iyo dadka. Wuxuuna isweydiiyey sida dhaqsada ay iskugu bedeleen tuulada iyo dadkeediiba. Dadkana waxay la yaabanaayeen dharka uu wato ninkan iyo lacagta uu watay. Tuulada markii ay kasoo tageen waxaa la halaagay boqorkii, dadka oo dhammina waxay noqdeen mu'miniin, u riyaaqeen dhalinyaradii mu'miniinta ahayd. Kadibna wuxuu u tegay nin iibinaya cunto, wuxuuna usoo taagay lacagta, wuxuuna ku yiri iga iibi cunto. Ninkii wax iibinaya ayaa la yaabay lacagta uu wiilkani watay, wuxuuna arrinkaasi degdeg ula socodsiiyey boqorka. Wiilkiina waxaa loo geeyey boqorka. Boqorkii ayaana warsaday wiilka, wuxuuna weydiiyey halkuu ka yimid iyo meeshuu ka keenay lacagtan. Boqorkiina hore ayuu ogaa inay dhalinyaro maqan yihiin muddo 309 sannadood. Wiilkii ayaana uga waramay inay shala seexdeen godka, isaga iyo dhalinyaro kale oo la socotay, iyagoo ka cabsanaya qoomkoodii. Boqorkii ayaa ku yiri shalay maydaan seexanin ee waxaad seexatay 309 sannadood ka hor. Wiilkii isagoo yaaban ayuu u yimid dhalinyartii kale, wuxuuna u sheegay warkii. Dhalinyartiina way fajaceen markii ay xaqiiqsadeen inay hurdeen muddada aadka u dheer. Alle ayayna u mahad celiyeen. Muddo kadibna dhalinyartii way geeriyoodeen, waxayna ku geeriyoodeen godkii ay markii hore hurdeen. Godka asxaabul kahfi meesha uu ku yaalo waxaa ka jira khilaaf badan, balse aragtida ugu xoogani waxay sheegaysaa sanadka markuu ahaa 1963 waxay dowladda Urdun shaacisay in godka asxaabul kahfi uu ku yaalo dhulkeeda, iyagoona soo bandhigeen god ay ku aasan yihiin 7 qof iyo ey, balse xaqiiqada Alle ayaa og. Sawirada ay dowladda Urdun soo bandhigtayna waa kuwan.